qodob ayaamaha bahaystay tiifiyada iyo jaraa'idka iyo suuqa oo idhaha oo ah in golaha wakiiladu ay ansixiyeen cashuur la raacinayo telefoonada iyo korontada iyo biyaha. cashuurta meel aan ku ansixinay ma jirto, waana khalad, manaan yeelin mana jirto. waana arrin been abuur ah. ciddii tinayada caddayn doonta meesha golaha wakiiladu ay dadweynaha culayska intaa leh ku saareen. arrinkaasi waa arrin aan waxba ka jirin, meel aanu ku ansixinayna ma jirto. ciddii bixisaana waxay bixisay lacag xaaraan ah. waxaanu leenahay arrinkaa waxba kama jiraan. waxaanaan iminka aad iyo aad uga digayaa shirkadaha la soo fuulay ee loo dhex marinayo, maadaama ay biyihii burco leeyihiin dawladdu leedahay, oo biyihii berbere dawladdu leedahay, oo biyihii hargeysa dawladdu leedahay. maareeyuhun bay odhanayaan dalka ku dallaca biyaha, laakiin shirkadihiina baleefadka ahi inaad dadweynaha u soo raacdaan maamulada oo $10 aan moobilka ku shubanayaa $1 dawladdaale waanu kaa jaraynaa, oo $9 iyo badh baan lagu xisaabinayaa. arrinkaas waxaan u aragnaa arrin gaf ah. shirkadahana waanu uga digaynaa. mididii aad dadweynaha ku gowracday idinkuna waa isu gowracdeen, waayo xisaabihiin loo dhan baa la ogaanayaa. inta midida la hadlo ayaa la ogaanayaa. xisaabiyayaal baa la keenayaa, kombiyuutarraa laydin keenayaa. cashuurtan waaba sahla mid ka badan oo 100% oo ka fara badan baa idinkana laydin saaraya. arrinkaasi waxa weeye waa duurxul. xogtiinna hadday leyr tahay iyo hadday telefoonna tahay iyo hadday mid kasta tahay, macalmacaashkii aa qarsan jirteen baa halkaa ka soo baxaya. macalmacaash ka badan baa laydku leeyey. baarlamaanku macalmacaash buu ansixiyey, laakiin taloo kale muu ansixin. dadweynahana waa ku mudaro, idinkana waa idinku mudaro. yaana idinka samcadda laydinka dinin, yaan idinka dadweynaha laydin soo fuulin, yaan idinka horeba laydinku cadhaysnaa, yaan maantana dadweynaha laydinku dilin. taasina waxa weeye karixun yana wax kula walle xisaabihiinnu baa loo dhacaya. dadweynahana waa ku dulmi. cid allaale ciddii dulmigaad ka qayb qaadataana dembiga aakhiro isagaa qaba. ha ka qayb qaadanina oo dawladda ha u soo raacina oo dulmiga dadka laga qaadaya ha ka qayb gelina. aad iyo aad baan idinka digayaa.